waxaan warbixintan ku eegi doonaa madaxweynaha dalka Nigeria oo kufay kor inta uusan fuulin gaarigii qaadi lahaa. Madaxweynaha dalka Nigeria Bola Tinubu ayaa simbiraxday oo dhacay ka hor xuska 25 guurida dimuqraadiyadda dalkaasi Nigeria. Madaxweynahan oo 72 sano jir ah ayaa dhacay isagoo korayay jaranjarada gaarigii u qaadi lahaa fagaaraha eegale caasimadda Abuja ee dalka Nigeria. mid ka mid ah ilaaliyaashiisa ayaa ku tilmaamay in uu lugta la gafay jaranjarada, wuxuuna sheegay inay u suura gashay inuu qayb ka noqdo inta ka hartay barnaamijka. Shehu Sani oo ah siyaasi caan ah ayaa sheegay in aysan wax weyn ahayn madaxweynahana uusan ka duwaneyn dadka caadiga ah ee bini'aadamka. Inta badan dadka Nigeria ayaa u rajeeyay caafimaad, balse qaar ayaa su'aalo ka keenay caafimaadkiisa taa oo la mid ah tii mucaaradku ay sheegeen ololihii doorashada ee sanadkii hore. Muuqaal lagu soo xusuusanayay dhacdadan tan la mid ah oo ku dhacday madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la soo qaaday oo la soo galiyay baraha bulshada, taas oo lagu faafiyay iyadoo dadka ay siyaabo kala duwan uga hadleen. Muuqaalkan madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu oo sii baxaya isla markaana hoos u dhacaya intii lagu guda jiray dhacdo rasmi ayaa hadalhayn weyn waxay ka abuurtay baraha bulshada, taas oo keentay falcelino laga sameeyay barta X ee loo yaqaanay Twitter. mid ka mid ah kaaliyaasha madaxweynaha oo lagu magacaabo Doda Olusegun ayaa barta X waxa uu ku daabacay qoraal uu kaga hadlayay arrintan. Wuxuuna sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwo si caadi ah maalin walba u dhaca, isagoo sheegay in madaxweynuhu awood u lahaa inuu la sii socdo barnaamijka intiisa kale. waxa uuna sheegay in ay jiraan arrimo ku qasbaya madaxweynuhu in uu ka qayb galo sanad guuradaasi si wanaagsan oo caafimaad leh ayuuna u dhameystay ayuu yiri. waxa uu isla markiiba u gudbay wareegyadii xafladda. wax si rasmi ahna ma jiraan ayuu qoray kaaliyaha madaxweynaha Doda Olusegun oo qoraal soo dhigay barta X ee Twitter. Atuka Abubakar oo isna ahaa tartamihii ugu dhawaa ee Tinubu oo doorashadii 2023 ayaa muujiyay in uu u naxay madaxweynaha, wuxuuna qoraalkiisa uu ku yiri: si daacad ah ayaan ugu naxay madaxweyne Bola Tinubu. dhacdadan markii ay ku dhacday nasiib darre, isaga ayaa lagu wadaa in uu dib u eegis ku sameeyo ciyaaraha lagu xusayo maalinta dimuqraadiyadda. waxaan rajaynayaa in wax waliba ay isaga hagaagsanaan doonaan ayuu yiri. falcelino kala duwan ayaa waxaa lagu soo qoray baraha bulshada gaar ahaan X ee Twitter, iyadoo dadka qaarna ay qorayeen kommentiyo. si walba ha noqotee, Nigeria oo dhan ma aysan ahayn kuwa si weyn uga hadlay ama dhibaato u arkay kufitaankan oo madaxweynaha dalka Nigeria uu ku sameeyay xilligii uu galayay gaarigii la doonayay in lagu geeyo goob ay ka socotay xafladan 25 sano guuradii ka soo wareegatay. qof ku soo gala magaca Ogujongo barta Twitter ayaa waxa uu yiri: wax waliba Nigeria kaliya ma ahan, waa wax dunida ka dhaca, la yaabna ma lahan arrintan ayuu yiri. qof kale oo isna ku soo gala magaca ay ku qorantahay Kugis Twitter waxa uu soo qaaday: dhacdadan waa mid hadda ka hor ku dhacday madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, sidaa daraadeed ma ahan inay buunbuuniyaan dadka u dhashay dalka Nigeria dhacdadan, sababtoo ah madaxweynuhu waa wax dhibaato ahna ma jiro ayuu yiri. Mudi, qof magaciisu ay ku qoran tahay oo isna ku isticmaala barta Twitter, waxa uu yiri: waxaan rajaynayaa in uu fiican yahay madaxweynaha Joe Biden. arrintan ayaa ku dhacday, dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray, mana jirin buunbuunin ay sameeyeen dalka Mareykanka. sidaa daraadeed dadka Nigeria waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan oo ay aflagaadada iyo waxyaabaha aan wanaagsaneyn ay ka daayaan madaxweynahooda ayuu yiri. tani waa mid xusuus badan si aad u daawato muuqaalkan. arrintan ku dhacday madaxweynaha dalka Nigeria waa mid aad looga naxo ayuu qof kale soo qoray. haddaba madaxweynaha dalka Nigeria oo lagu magacaabo Bola Ahmed Abdullahi waxa uu dhashay 29 Maarso sanadii 1952. waa siyaasi u dhashay dalka Nigeria oo ah madaxweynihii 16aad. hadda ayuu madaxweyne ka yahay dalka Nigeria. waxa uu ahaa gudoomiyaha Lagos State laga soo bilaabo sanadii 1999 ilaa 2007. waxa uu sidoo kale soo noqday senator magaalada Lagos ee dhanka koonfureed ee Jamhuuriyadda Saddexaad. Tinubu waxa uu noloshiisa hore ku soo qaatay koonfur galbeed ee dalka Nigeria, markii dambena waxa uu wareegay dalka Mareykanka oo uu ku bartay xisaabaadka jaamacadda Chicago State University. waxa uu ku soo laabtay Nigeria horaantii sanadii 1990. waxa uu u shaqeeyay shirkadda la yiraahdo Mobile Nigeria si uu u noqdo xisaabiye ka hor inta uusan siyaasadda ku soo noqon. musharaxa sanadka ee Lagos West sanadii 1992 ayuu noqday, isagoo adeegsanayay calanka xisbiga Socialka oo uu xubin ka ahaa markii ugu horeysay oo ay haysteen militariga dowlad goboleedka ee dalkaasi Nigeria sanadii 19
1993 Tinubu waxa uu sidoo kale noqday nin u ololeeya dib u soo celinta dimuqraadiyadda dalka Nigeria. doorashadii ugu horeysay ee kadib kala guurkii kumeel gaarka ahaa ee gobolka Lagos, ninkan waxa uu ku guuleystay oo guul ballaaran uu ka gaaray isagoo xubin ka ah isbahaysiga dimuqraadiyadda 4 sano kadib. waxa uu ku guuleystay in dib loo doorto mar labaad kadib markii uu xilka ka tagay 2007. waxa uu door muhiim ah uu ka ciyaaray sameynta All Program Congress-ka sanadkii 2013. sanadka markuu ahaa 2023 waxaa dib loogu doortay in uu noqdo madaxweynaha dalka Nigeria. falcelintana arintana waxay noqotay mid si weyn looga hadlayo baraha bulshada maadaama muuqaalkiisu si weyn loogu adeegsanayay Twitter-ka, Facebook-ga iyo sidoo kale TikTok-ga. waxaana jiray dad aad u badan oo shacab ah oo dalka Nigeria qaybihiisa kala duwan ka kooban oo aad u difaacayay, walow ay jireen siyaasiyiin ka soo horjeeda oo mucaaradka madaxweynaha dalka Nigeria oo muuqaalkan u adeegsaday mid aan wanaagsaneyn. mid ka mid ah siyaasiyiinta dalka Nigeria ayaa waxa uu qoray qoraal dheer uu kaga hadlayay arrintan. waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Nigeria uu yahay 72 sano jir, sidaa daraadeedna loo baahan yahay in dadka Nigeria ay ka tashtaan oo ay bedelaan si dalka Nigeria uu yeesho madaxweyne daayar oo u adkeysan kara dhib walba oo soo gaara.